Assalaamu calaykum dhammaantiin waa dhidi salaamay meel kasta oo ay joogtaan. Waxaan ka hadli doonaa kulankii Aston Villa iyo soo dhex maray Arsenal, kaas oo Arsenal ay ku soo adkaatay 2 gool. Arsenal waxa ay marti ku ahayd guriga Aston Villa ee Villa Park. Arsenal half-time-kii hore oo laga awood roonaa walow ay fursado badan iska qasaarisay Aston Villa, hase ahaatee wax walba waxay isbedeleen half-time-kii dambe, taas oo 67 daqiiqo markii ay maraysay Trossard oo bedel ku soo galay oo ku shubay hogaankana. Sidaas ayay Arsenal kula wareegtay, hase ahaatee Arsenal wixii inta ka dambeeyay kubadda ayaa gacanta ku dhigtay, taas oo Aston Villa ku ciqaabtay. hase ahaatee 10 daqiiqo kadib Partey ayaa ku shubay, kaas oo caawinta ka helay Bukayo Saka. Arsenal sidaas ayay 2 gool anka ever ugu soo badisay, walow season-kii la soo dhaafay sidaan oo kale ay ka dhacday guriga Arsenal ee Emirates oo Aston Villa ay 2 gool kaga soo adkaatay Arsenal. hase ahaatee Arsenal hadda ayay ka aarsatay, waxay cadaysay Arsenal inay si serious ah ay u doonayso horyaalka Premier League. hambalyo reer Arsenal, dhammaantiin waan idin hambalyeynaya guusha quruxda badan ee aad ka soo gaarteen Aston Villa.